maqaalkeenan gagaaban maanta waxaanu ku eegaynaa jalaaga malmahan ee u shidan tahay jikada Bollywoodka marka loo fiiriyo guulaha ay gaarayaan aflaamtiisa sida Dream Girl, Andhadhun, Bala, Badayo iyo sidoo kale Article 15. waxaan eegaynaa jalaagan ee xilli ay ku hareersanaa cabsida ah film jelista inay ka dhex muuqato filimada doorar kala duwan aad jishid guulana aad gaarto laakiin aad iska hilmaamto cabsida. haddaba aan isla eegno micnaha ereyada laga diiwaangeliyay xidiga Ayushmann Khurrana ee guulaha u saaxiibka ah. waxa kaliya aan ka aaminsanahay inaan qof cabsan aad noqoto mar haddii aad aragto guuldarooyinka badan ee xagga nolosha. waxaan arkay guuldarooyin badan xagga nolosha ah. waxaan haddii jar ahaa qof tartama. waxaan haysan jiray silsilooyin si aan aadahen aan ugu dhaaran jiray. waxaan haystay kuntin. waxaan ku dhacay tijaabooyin badan. waxaa jira waqtiyo xilliga iskuulka ah goortii aan quus ka tagnaa tiyaatarada ma heli jirin door hogaamineed maxaa yeelay waxaan ahaa qof caata ah xitaa waan gaabnaa. waxaan xilli walba bari jiray ilaahay. kadib waxaan wax ka sameeyay tiyaatarada kale ah Chandigarh, Jantra iyo sidoo kale Azad. waxaan ahayn kuwo kaliya ee ka socday Bollywood Town oo u tartama loona dejiyo urban sida IIT Bowai iyo sidoo kale British Bilani. waxaan si group ah u tagi jirnay tiyaatarada halkaasi ku yaala. waxaan u masraxin jirnay nooc walba oo dadka ka mid ah sida xaafadaha iyo meelaha walba oo safar u tagi jirnay geeska gees dalka oo dhan. waxaan xasuustaa inuu jiro tareen la yiraahdo Punjab Mail oo 48 saacad ku qaadan jiray inuu naga soo qaado Chandigarh nageeyna Mumbai. waxaan garaaci jirnay gataaro oo ku madadaalin rakaabka tareenka saaran. lacagna waan ka qaadi jirnay. mid aan ogahay ayaa ah asxaabteeda qoyskeeda kuwa aan isku galaaska nahay weligood kuma fikirin inaan actor film hogaamiye noqdo. weligeyna waan tartami jiray ayaa laga soo xigtay xidiga Ayushmann Khurrana ee filmada ka dhex muuqda Hindiya. waana sidoo kale actor heesaaye iyo kuwa qabta barnaamijyada abaalmarina lagu bixiyo.